dialogue wada hadal. If you are a clever student, can you tell me the difference between how are you and how do you do? Ma ii sheegi kartaa haddaad tahay arday caqli badan how are you iyo how do you do macnaha u dhexeeya? Yes, I can tell you. It is very simple question. Can you can use how are you when you wanted to ask someone is healthy and how do you do. It is used a formal greeting when you meet somebody for the first time. ها waan ku sheegi karaa waana su'aal fudud. How are you waa marka qofka how are you markaa qofka leedahay waa xilli aa weydiinaysa xaaladiisa caafimaad. How do you do markaa leedahay qofka waa salaanta rasmiga ah oo marka ugu horeyso saacad ugu horeyso aad la kulanta ah. No, I can see well the difference between how are you and how do you do, but do you reply if someone says to me how do you do? hadda waxaa u fahmay si wanaagsan farqiga u dhaxeeya how do you do iyo how are you. laakiin maxaa ugu jawaabaa qofka hadduu u dhaho how do you do ama how are you do yidhaha sidee ugu jawaabaa? If someone says to you how do you do, you can reply how do you do. qofka macnaha hadda su-aasha weydiiyo how do you do duu qofku yidhaahdo adna waxa uu jawaabay how do you do sidee tahay macnaha qofka duu ku yidhaahdo sidee tahay adna waxaa leedahay sidee tahay. Thanks for your information. wallaahi la yaab anaga waxaa waaye su-aasha sidee tahay markii qof la dhaho waa fiican hadna sidee tahay u dhaha moogta laakiin dadka af ingiriis ku hadlo waxaa waaye qof u horeeyo uu ku yidhaahdo sidee tahay adigana sidee tahay ugu jawaab. marka casharada labaad lala socdo casharkan waxaa waaye dadka kuwa cusub subscribe-ka ha saaraano like ha saaraano casharadan oo ku cusub iyo barnaamijkan aa wadno siday u arkaan commentiga ku soo qoraan. dadka hore noola socdana casharkan dee ka heleen like-ta ha saaraano wixii su-aalay qabaan commentiga. markan waxaa waaye waxaan marownaa 80 subscribe marka 100 kana gaarsiiyo insha Allah.